هاي أصحابتي كسر وهذا كلا فائدة سنو واحد اللي هو ذاقيها على الوين بعملها رنتي إنك استوى الأسبوع كسرعه ويصير صعطة marka waxa aniga ii shaqeeyay waa laga yaabaa adigana inay ku shaqeeyaan marka waa idin la wadaagaya mashiinka ugu khatarsan oo runtii aad dareemaysid straight away waa kan squash kan saddex mar من 12 haddaad samaystid miisaanka adiga ay kugu xiran tahay waxaa la rabaa un halkaas xudunta korkeeda inaad ka dareentid markaa saas isu soo jabisid inaad runtii baynka dareentid saddex mar min 15 xabaa haddaad ku celcelisid miisaanka anigu waxaan sameeyaa 35 dadka qaar baa 40 sameeya laakiin muhiim ma ah wax culays badan oo 8 mar inaad qaado waxaa ka muhiimsan in ka fudud oo 15 mar ah oo 3 mar ah 15 mar ah baynku markuu bilaabmo waa marka shaqadu bilaabanta marka easy laha uga degin mashiinkan socodka runtii orodka banaanka marka laga soo tago waxa ku xiga waa kan uu shaqeeyaa hadda ku isbeen garaysid bilow marka tahay 15 minutes 20 minutes aniga my tummy waa going down kadib waxa ku xiga baaskiilka nooca haystid bay ku xiran tahay haddaad kala Yurub joogto meel walba way yaalaan hay baa ka dhigi kartaa inaad buur fuulaysid kan laftigiisa hay baa ka dhigi kartaa sidii climbing oo kale kor baa u qaadaysaa halkan unbaa waxaa ka wareejinaysaa oo waxaa ka dhigaysaa inaad kor aaday sidii qof mountain climb garaynayo kale waad ku dari kartaa let me show you hadda kana intisaaya qabowga aniga leexay hadda kana intisaaya waska kor baa u qaadi kartaa halkan the more hay ka dhigtid the more aad sidii qof buur fuulaya noqotid marka runtii wuxuu gubayaa so much hadda qofkii hadda iga horeeyay 271 calories wuxuu ku gubay 30 daqiiqo 271 calories cayaar ma aha almost waa 300 calories marka haddaa mashiinka ku lugaysid baaskiilka 10 minutes samaysid oo waliba aad high mountain ka dhigtid squashkaas aad samaysid runtii waa dareemaysaa aniga way ii shaqaysay Soomaali marka ka soo noqdo runtii miisaan culus baa saaray anoo waxaan soo noqday runtii culays wada saaray hadda xoogaa wali adiga dhismaha waa socdaa wali xoogaa waa xariftooya laakiin runtii miisaan badan baa riday maxaa kale baaskiilkan waa la mid runtii kale waliba wuxuu ku cajiib ku yahay asaga ku empower gareynaya ku dhiirigelinaya ku motivate gareynaya come on ku dhahay bushid ku dhahay markaad daashid dhagaha gashanaysaa asaga isa sii ka dhiirigelinaya marka odayaasha da'deeda waliba ku tajirada exercise runtii waa muhiim waliba qurbaha dadka Soomaaliya jooga qorax bay haystaan way dhididaan intaas way ordayaan intaas waa shaqeynayaan laakiin ragga runtii qurbaha jooga barafleyda jooga konton hadduu gaaro ninkuusan xoogaa wax exercise samayn runtii wuxuu khatar u yahay sokor iyo ilaahay naguma keenay waxyaalahaas oo dhan baa dhikar iyo dhan baa miisaankaagu muura u fuulo oo waxa ay dhaqaatiirtu kugu waaniyaan ay ku dhahaan miisaanka dhin marka miisaanka hala dhibo aniga wali hawsh waa socotaa wali halkaana hafti tii halkaana ay waa gooy horta kaf baan si halkaana waxay xoogaa lagu jiraa squash kaas dilay insha Allah by the time I'm aiming markaan August dhamaadkeeda insha Allah markaan Soomaaliya ku noqonahay hadii Allah inaan miisaanka runtii wax badan ka dhimo marka markale in kugu celinaya halkan hadduu guri ku yaalo hadduu gym ku yaalo runtii you can kill it 300 calorie waxa ku gudbin kartaa 20 minutes 300 calorie waa sokor badan waay kan oo qofku markuu heavy yahay runtii waxa xabadka caloosheeda qaybta kore waxa gooyay mashiinkaas waay halkaas xudunta korkeeda saas marka isu soo jabisid adoo garbaha ku saaran yihiin labadan culays runtii aniga way ii shaqaysay I'm sure adigana inay ku shaqaynaysid baaskiilku waa calorie badan buu gubaa asna ka faa'iideysta waxa kale ka soo haray kaliya waxa waaye sustainability inaad joogtaysid aniga weekii waxaan isku dayaa ugu yaraan 5 times inaan sameeyo the family baa tahay mar waxa kugu soo kordhi karaan waxyaalo kale oo kugu soo laakiin at least dhayga maalinkaas inaan ka dhaxelo
inaan ka dhex helo half an hour waxaan isku dayaa maqribka hadda kale waa 9 before 9 inaan intaan anoo already shaqadii soo dhamaystay oo gymkiina soo maray inaan 9 markaas hoydo marka find the time waxaa laga yaabaa adiga easy inay subax hore ku tahay waxaa laga yaabaa inay adiga ku tahay mashiinkan oo kale waa labada cagood baa halka ay halkaa kala gashanaysaa waxay ku fiican yihiin ku dhiirigelinayaan tiradii ku tusayaan keep going bay ku leeyihiin dhagahaaga quraan baa haddaad rabta dhegaysan kartaa haddaad rabtid waxaad dhegaysan kartaa tababaraha ku dhahaya intaasaa ku hartay nearly there ku soco iwad sheekada haye almost there well done guulayso habababa waa motivational runtii aniga waan ka helaa way dhiirigelisaa marka lagu dhaho shan baa ku hartay 4 baa ku hartay haddaad xataa daashay waa isku sii dayaysaa marka odayaasha da'dayda kuwa iga waaweyn ya waxaan leeyahay runtii weliba qurbo joogtahay ka kac meesha xaawalaydina oo eed sheeganayaan waa maqlaysaan waxay meelaha ka leeyihiin nimankii Soomaaliya hey six pack ma xaga ka keenay ilaahay wana leh bal hala dadaalo bal hala dadaalo aad baan idin salaamayaa khayr badan baan idin rajeynayaa next time waxaan soo gelin doonaa runtii muuqaal qof baan iga duublay anoo real life u sameynaayo exercise-yada laakiin maanta korka baan ka sugaya cameraman kale ilama socon marka idinkaas ayaan ka tegayaa caafimaadka laga shaqeeyo waa six pack campaign-kii ya qoraxdiina waa soo baxday hadda halla xamaashaan leh aad baan idin salaamayaa waxaan ka codsanayaa runtii channelkan inaad noo sii ballaarisaan oo aad dhalinyarada kale iyo akhyaarta kale la wadaagtaan waxaan soo gelin doonaa insha allah aniga nin kale Soomaaliya oo tababarkii nagu socdo coach baa ijaarayna asaga nagu shaqeynaayo coachku markuu ku shaqeynayo 25 baana laga qaadaya laakiin waxa laga keenayaa dhidid baldiyaal marka ku soo dhawaadaan leenahay kana faa'iideysta runtii sokortaas la dagaalo qurbo joogay sonkorta iyo miisaanku runtii aniga laftigayga experience gareeyay mar baan 100 sii cagacagay alxamdulillah hadda it's going down marka waxaan leeyahay ka kaca meesha hala ordo hala baaskiilaysto hala exercise gareeyo lugta laftigeeda haddaad xataa jim aadan oo baaga waaweyn tagtid oo ku ordo xaafadaada waa okay marka intaas ayaan kaga tegayaa khayr badan baa idin rajeynayaa aniga hawsha waa socotaa waa almost there laakiin weli ilaa baasha dag noqoto hawl badan baa harta khayr badan baa idin rajeynayaa assalaamu calaykum